dhageystayaasheena qiimaha lahow ku soo dhawaada barnaamijka Taakula oo ah barnaamij aan uga hadalno taageerada iyo waxqabadka hay'adaha iyo sanduuqyada qaramada midoobay ee ka howlgala qaybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya. barnaamijka Taakula waxaan idinkula wadaagnaa xogo iyo macluumaad muujinaya taakulaynta joogtada ah ee ay qaramada midoobay la garab taagan tahay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Taakula waa barnaamij khamiis dhaaf looga baahiyo idaacadan aan hadda idinkala hadlayno iyo kuwa kale oo badan. toddobaadkan waxaan barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonaa So the United Nations Assistance Mission in Somalia is what we call UNSOM, and it's a special political mission with a UN Security Council Chapter 7 mandate. Special political missions, we call them SPMs, are broadly defined as UN civilian missions deployed to support member states. codkaasi aad maqlayseen dhageystayaal waxa uu hordhac u yahay waraysi aan la yeelanay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo ka warbixin doonta waxqabadka xafiiska kaalmeynta qaramada midoobay ee UNSOM iyo arrimaha sida gaarka ah UNSOM ay mas'uuliyad weyn uga saaran tahay. si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo wac idaacadan aad hadda barnaamijkan ka dhageysanayso adigoo aqoon ku salaynayana ka jawaab su'aasha toddobaadkan oo ah sidee hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya ay uga faa'iideysan karaan taageerada qaramada midoobay si ay u guuleysato dawladnimada Soomaaliya. haddii aad barnaamijkan kala socoto baraha bulshada ee UNSOM fadlan noo reeb aragtidaada. waa hagaag dhageystayaal guutaalo intaynan gudagalin waraysiyada barnaamijka bal xog kooban naga sii hawsha iyo waajibaadka xafiiska kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM. waad mahadsantahay Fadxi. xafiiska kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano UNSOM waxaa la aasaasay bishii Juun sanadkii 2013 kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu cod buuxa ku ansixiyay. ujeedada ugu weyn ee loo aasaasay xafiiskan ayaa waxay ahayd in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM la siiyo talo siyaasadeed ha noqoto dhinacyada dhismaha nabadda iyo qarannimada, dawlad wanaagga, amniga, amarka iyo kala dambeynta iyo sidoo kale horumarinta nidaamka federaalka ee Soomaaliya. awoodda iyo waxqabadka xafiiska UNSOM intaasi kuma soo koobi karno. haddaba si aad faahfaahin dheer u hesho waxaad booqan kartaa bogga xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM. waad ku mahadsantahay guutaale sida kooban ee aad noogu faahfaahisay taariikhda iyo waajibaadka xafiiska kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM. haddaba si aan xog dheeri ah uga helno waajibaadka iyo hawsha xafiiska kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM ayaan waxaan la xiriirnay ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Anita Keki oo aan ugu horreyn weydiinay maxay tahay UNSOM maxayse qabataa. So the United Nations Assistance Mission in Somalia is what we call UNSOM, and it's a special political mission. howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta Soomaaliya oo loo yaqaano UNSOM waa howlgal siyaasadeed oo gaar ah oo haysta awoodda jabtarka 7 ee golaha amniga ee qaramada midoobay. howlgallada siyaasadeed ee gaarka ah waxaa lagu tilmaamaa howlgalka qaramada midoobay ee dhanka arrimaha rayidka ah oo loo adeegsado in ay taageeraan dalalka iyadoo shaqooyinkooduna ay ka mid yihiin ka hortagidda colaadaha, nabad abuurista, dhismaha nabadda iyo fulinta howlaha kale ee uu golaha amniga ee qaramada midoobay u xilsaaray. UNSOM waxaa lagu aasaasay 3 Juun 2013 qaraar ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay. xarunteena waxay ku taallaa Muqdisho. annagoo xafiisyo shaqo ku leh Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Somaliland. waxaan qorsheynaynaa inaan xafiis ka furanno magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. waxaa intaa dheer UNSOM waxa ay xafiis shaqo oo yar ku leedahay magaalada Nairobi, xarunta dalka Kenya, halkaas oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah saaxiibadeen. UNSOM
waa howlgal ay ka wada shaqeeyaan qaybaha kala duwan ee hay-adda qaramada midoobay, haddii ay yihiin dhinacyada siyaasadda, amniga, horumarinta xuquuqda aadanaha iyo kaalmada arrimaha bini'aadanimada. Dhammaantood waxay isugu yimaadaan hal xubin ahaan oo ay u wada shaqeeyaan heer wanaagsan si loo guto waajibaadka shaqo ee Soomaaliya. Si kale haddaan u dhigana, waxaan u shaqaynaa bahda qaramada midoobay ahaan, annagoo taageerna dowladda federaalka ah, dowladaha xubnaha ka ah iyo qaybta ugu muhiimsan oo ah u adeegidda dadka Soomaaliyeed. Si kooban, waa taas UNSOM. In support of the federal government, the federal member states, and most importantly, the people of Somalia. So in a nutshell, that's UNSOM. marka maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay UNSOM qabato? UNSOM's mandate can be placed under three main pillars: advocacy, capacity building, and coordination. Howlaha UNSOM waxaa lagu qeexi karaa 3 tiir oo waaweyn oo kala ah olo-olayn, awood ama karaan dhisid, iyo isku duwidda. Kaalinteennu waa taageeridda hay-adaha dawliga ah ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Soomaaliya oo ka gudbaya heerkii colaadaha una tallaabsanaya nidaam dimuqraadi federaal ah oo shaqaynaya. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa awood noo siiyey in aan taageerno in Soomaaliya ay horumariso hay-adaheeda dawliga ah. Waxaan ka caawinnaa maamulada in ay wada shaqeeyaan. Waxaan bixinnaa talooyin wanaagsan si aan gacan uga geysanno in Soomaalida ay xalliyaan colaadaha ayna sii wadaan hannaanka dib u habaynta dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya. UNSOM waxaa madax u ah ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay soo magacaabay James Iswan. Waxaa jira 2 ku-xigeen oo kala ah aniga oo qaabilsan dhinaca arrimaha siyaasadda iyo ku-xigeenka kale oo qaabilsan horumarinta iyo arrimaha bini'aadanimada. Sidoo kale waa isku duwaha arrimaha bini'aadanimada ee Soomaaliya. UNSOM waxa ay leedahay dhowr tiir oo muhiim ah oo taageera dowladda Soomaaliya heer federaal iyo mid dowlad goboleedba. Qaybaha UNSOM ee sida tooska ah hoos yimaada waxa ay leeyihiin shaqooyin aad u fara badan oo ah dhinacyada siyaasadda, dhexdhexaadinta, xuquuqda aadanaha, amarka iyo kala dambeynta. Waxaan taageernaa xafiisyada sarsare ee howlgalka oo ay ka mid yihiin xafiisyada muhiimka ah ee geedisocodka siyaasadda, hannaanka dib u eegista dastuurka ee uu ka shaqaynaya baarlamaanka, wasaaradda arrimaha dastuurka oo qayb weyn ka ah hannaanka dib u eegista dastuurka. Waxaan la shaqaynaa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka oo ka shaqaynaysa dib u heshiisiinta arrimo badan oo la xiriira hannaanka federaalismka iyo qaybo kala duwan oo badan oo qayb ka ah wax ka qabashada colaadaha gudaha, taasoo qayb ka ah doorkeenna dib u heshiisiinta iyo dhexdhexaadinta. As part of our reconciliation and mediation role. welina dhagaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka taakulo oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbino. dabcan howlaha UNSOM ee Soomaaliya waxaan ognahay inay ka mid yihiin howlgallada siyaasadeed ee qaramada midoobay. marka sidaad ku cabiraysaa miisaanka guulaha howlgalka? Based on our mandate in support of Somalia, we define success in terms of our contribution to effort. Si waafaqsan awooddeena taageeridda Soomaaliya, waxaan ku qeexnaa guusha hadba ku lug lahaanshaheenna dadaalada ku aadan heer federaal oo nabdoon oo xasilan. Waxaan u aragnaa in guushu ay tahay hannaan socda, waana fahamsannahay in ay jiri doonaan caqabado iyo dib u dhacyo, balse waxaa naga go'an in aan taageerno Soomaaliya si ay horay ugu qaado tallaabooyinka ku wajahan mustaqbal wanaagsan. Tusaale,
waxaan u adeegsanaa xafiisyadeenna in aan la howlgalno hoggaanka sare oo ay ku jiraan heerarka ugu sarreeya. Mararka qaar waxaan si dhow ula shaqaynaa saaxiibada kale sida xiisadihii doorasho ee dhowaan taagnaa, annagoo ku dhiirigelinay in xal laga gaaro caqabadaha Soomaaliya. Waan dhagaysanaa, waan taageernaa, waxaana intaa samaynaa annagoo iskaashi la leh beesha caalamka. Meelaha looga baahan yahay waxaan bixinnaa talo, annagoo dareensan in ay hoggaamiyaasha Soomaaliyeed u taallo in ay wada hadlaan si loo helo xeer jajab lana qaato go'aamo muhiim ah oo ay danta Soomaalida ku jirto. UNSOM waxa ay taageero siinaysaa dowlad goboleedyada kala duwan ee dalka si gacan loogu siiyo horumarinta sanduuqa horumarinta booliska oo qayb ka ah nooc boolis oo ay ku heshiiyeen dowladda federaalka ah iyo beesha caalamka sanadkii 2016. UNSOM iyo UNICEF waxa ay taageerayaan ciidamada qaranka si dib u eegis loogu sameeyo ciidamada si loo xaqiijiyo in carruur aysan ka mid ahayn ciidamada. Qayb ka mid ah hawshan waxa ay taageero ka helaysaa waaxda ilaalinta carruurta ee wasaaradda difaaca. Tusaale, 74 carruur ah ayaa laga saaray ciidamada Puntland 2018, iyadoo 6 carruur ah laga saaray ciidamada qaranka Soomaaliyeed. while 6 were screened out of the Somali National Army in 2017. weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka taakulo oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbino. markii aad timid Soomaaliya horaantii sanadkan adigoo weli ah ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, waxay ka dhigan tahay 10 guuradii ka soo wareegtay markii kuugu dambeysay ee aad Soomaaliya ka shaqayso. Marka haddii aad isbarbar dhigto markii kuugu dambeysay Soomaaliya iyo hadda, ma jiraan horumar weyn oo laga sameeyay xaaladda Soomaaliya? So I served in Somalia from late 2008 until early 2012, and I'm very pleased to return to a country that I know well. Waxaan ka shaqeeyay Soomaaliya dabayaaqadii 2008 ilaa horaantii 2012. Waana ku faraxsanahay in aan ku soo laabto dal aan si wanaagsan u garanayo. Si muuqato ayaan u arki karaa isbeddelka la taaban karo marka la barbar dhigo 10 sano ka hor oo dowladda ku-meel gaarka ah ay qaybo kooban uun ka joogtay Muqdisho. Ma jirin dowlad goboleedyo abaabulan marka laga reebo Puntland oo qayb ka qaadanayay nidaamka federaalka ee hadda socda. 10 sano ka hor diiradda waxa ay saarneed wax ka qabashada arrimaha bini'aadanimada. Ma jirin wax wada hadal ah oo ku saabsan arrimaha horumarinta ee waqtiga fog. 10 sano ka hor markaan imid, gaadiid aad u yar ayaa wadooyinka marayay. Waxaan xusuustaa markaan imid eeraboorka Muqdisho, tiro aad u yar oo diyaarado ah ayaa ku sugnaa eeraboorka. Dhismo yar ayaa ku yaala eeraboorka. Maba la barbardhigi karo waxa hadda aan aragno. Marka aynu hawl u aadayna villa Soomaaliya, ma jirin wax baabuur ah oo wadooyinka maraya. Waxaad arki kartay jidad xiran, ma ahan wax u dhigma waxa aan hadda aragno, waana astaan muujinaysa adayga dadka Soomaaliyeed. marka maxay UNSOM sameynaysaa si ay ugu ololeyso qoondada haweenka ee 30% ah gaar ahaan doorashada soo socota? The last election saw 24% female representation in both houses of parliament. Haddii aan ka hadlo dhinaca doorashooyinka, doorashadii ugu dambeysay waxaan aragnay 24% kuraasta labada aqal in ay heleen haween, iyadoo dalka uu u diyaar garoobayo doorashada baarlamaanka. Su'aashu waa sideen u xaqiijin karnaa in Soomaaliya aysan dib uga dhicin tallaabadan taariikhiga ah? UNSOM iyo hogaamiyaasha kale waxaa ka go'an in aan taageerno isbeddelka wanaagsan ee Soomaaliya ka dhaqan galay si loo muujiyo in loo dhan yahay siyaasadda, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay, dhalinyarada iyo haweenka. Waxaan rajaynaynaa in ugu yaraan qoondada haweenka ee 30% ah la helo inta lagu guda jiro hanaanka doorashada ee socda. Waxaana ugu baaqaynaa dhammaan hogaamiyaasha siyaasadda in go'aanadooda laga miro dhaliyo marka ay timaado siyaasad loo dhan yahay iyo qoondada haweenka ee 30% ah. Waxaan la falgalnay dhammaan hogaamiyaasha siyaasadda. Ra'iisul Wasaaraha ayaa hogaaminaya dadaalada.
waan taageernay kulamadii ugu dambeeyey ee madaxda halkaas oo ay ku shireen lana yimaadeen jadwal doorasho iyo nidaam nagu hagi doona doorashada madaxweynaha. Jadwalku wuxuu muujinayaa in madaxweynaha la dooran doono bisha Oktoobar ee sanadkan. Waxaan leenahay koox farsamo oo la shaqaynaya guddiyada uu ra'iisul wasaaruhu magacaabay. And this technical unit is working very closely with the test team that has been appointed by the Prime Minister. aad ayay u mahadsan tahay. taasina dhageystayaal waxa ay ahayd Anita Keki oo ah ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo barnaamijka Taakulo nagala qayb galaysay. walina dhageystayaal waxaad la socotaan barnaamijka Taakulo oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbino. si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo wac idaacadan aad hadda barnaamijkan ka dhageysanayso adigoo aqoon ku salaynayana ka jawaab su'aasha toddobaadkan oo ah sidee hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya ay uga faa'iideysan karaan taageerada qaramada midoobay si ay u guuleysato dowladnimada Soomaaliya. haddii aad barnaamijkan kala socoto baraha bulshada ee Unsom fadlan noo reeb aragtidaada. intaasina dhageystayaal waxaa noogu dhammaaday barnaamijkeennii Taakulo oo aan maanta uga hadlaynay hawsha iyo waajibaadka xafiiska kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya ee Unsom. tan intaan dib uga kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.